بابا تعليم تاريخ درجة يبيرا كيان بلو تبدو دقالها تركنا يا علي دغلا تركنا يا علي بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cabdirasaaq cabdidaad xubin ka tirsan golaha wacyigelinta soomaaliyeed ee samatalis waxaan doonayaa haddii alla idmo in aan ka hadlo arrin soo noqnoqotay oo wax badan ku soo noqnoqotay puntland iyo federaalka iskhilaafkooda ku saabsan iyo arrin kale oo iyaduna ku saabsan puntland wadajirkeeda iyo isku haynteeda iyo wixii kala geynaya oo kala firdhinaya in loo yeesho faham iyo aragti loo yeesho oo wixii dhib iyo kala geyn u keenaya laga hortago oo la xalliyo labada qodob baan rabaa in aan xoogaa dul istaago haddii aan ku horeeyo arrinta khilaafka puntland iyo federaalka oo wax badan soo noqnoqday waxaynu wada ognahay kolley haddii wax maaragtay la isku hayo ama la isku khilaafo uu jiro soomaalidu waxay ku mahmaadaa ama wax meesha ku jira baa laga saarayaa oo halkaasaa khaladku ka imaanaya oo aan in laga saaro meesha aysa ahayn ama waxaan meesha geli karin baa la soo gelinayaa oo in aan la soo gelin ay tahay bay soomaalidu tiraahdaa wixii khilaafkoodu soo noqnoqdo labadaas sababood middood baa loo tiiriya puntland waxaan ognahay markii sidii aan soo sheegay barnaamijkan mid ka horeeyey oo aan sii daynay markii muddo 7 sano ah la raadinayay soomaali in la isu keeno oo ay arrintaasu adkaatay waa tii ay ku tashadeen shacabka puntland in ay iyagu wax yagleeshaan oo bal wuxuun asaasa samaystaan marka iyagoo meel ay ka ambaqaadi karaan jooga ay markaa soomaali raadinteeda markaa ka bacdi ay doonaan laakiin faramarnaanta ay ka baxaan oo bal marka hore wax samaystaan taa markii horaan ka soo hadalay taasi waa tii ay suuro gasho la sameeyey dabadeedna iyadoo aan waqtiba la sii jooginba waa tii soomaali raadinteeda la gudagalay dabadeed puntland waa tii ay madaxweynaheedii waa tii uu maaragtay maamulkii soomaaliya oo loo dhisay soomaali la isugu keenayay oo lagu sameeyey nairobi 2004 waa tii uu madaxweynaha ka noqday wax allaale waxay puntland heli kadhay xoog iyo xoolaba waa tii ay awooddeeda isugu geysay shacab iyo madaxba in mar calankii xamar laga taago calankii soomaaliya oo babanaya oo maaragtay caasimadii la geeyo dowlad soomaaliyeed marna laga taago calankii si adduun weynihiina u soo noqdo soomaalina inay kaalinteedii ku soo noqotay adduun weynaha maaragtay loo tuso rajana u soo noqoto tirtiran qarankii ku dhacana looga badbaado haddii mar haddii caasimadda calankiina ka babanayo madaxtooyadiina laga muday safaaradihii adduunku inay soo noqdaan oo adduunkii soo noqdo oo la yidhaahdo dalkaas waa soo noolaaday bay markaas u ahayd horseed u noqonaysay sidaasaa la yeelay marka haddee dhulka waxaa daadsanaa qodax badan baa daadsanayd
ama faragelinta ajnabiga ha noqoto ama tafaraaruqa dadka ku jira ama qabqablayaashii ha noqoto ama maaragtay fawdadii lagu sugnaa ha noqotee wax markiiba si hawl yar u fuli karo oo u socon kara arrimuhu ma ahayna dhib badan iyo caqabado badan iyo rafaad badan baa lagala kulmayay laakiin waxa weyn oo muhiimka markaa ahaa oo ay saas u arkayeen Puntland iyo shacabkeedu iyo madaxdeeduba wuxuu ahaa taagidii calanka in lagu guuleysto adduunkiina loogu yeero caasimadii inay ku soo noqdaan arrinta waa suura gashay dhib kastaba ha laga maro caqabado kastaba ha soo siyaadeen ha la isku dado xataa in maaragtay ninkii madaxweynihii la dilo oo la qarxiyo dabadeedna ha la isugu tago oo maaragtay ajnabigu saameyn badan oo uu leeyahay oo ay ugu daran tahay in asagii xukunkiiba laga tuuro si aan maaragtay sidaa xamar uu u geeyey calankii oo caasimadii gacanta loogu qabtay dalkoo dhan in la isu keeno ayaa ajnabigu ka baqaye dalkoo dhan in la isu keeno oo cagaha ay marka labaad Soomaalidu ku istaagto loomana rabin in dawlad Soomaaliyeed degdeg u soo noqoto lamana rabo haddana taas xaqiiqo jirta weeye maxaa yeelay markii la dhisay maamulkii lagu dhisay Nairobi Imbigati lagu dhisay waxay isku dayeen ajnabigu in uusan maamulku dhaafinba Nairobi inuusan ka bixin oo muddadu Nairobi kaga dhamaato taasuu isku day sidaas ajnabigu isku dayeen inay Nairobi ba ka bixin marka ninka Cabdullaahi Yuusuf aha wuxuu awoodiisa isugu geeyay in uu asagu guragurayn waxa la yiraahdaa asagu wax inuu hadba koox wasiiradii iyo baarlamaankii iyo hadba inuu yiraahdo isagoo kaashanaya ninka Cadam Muuse oo Puntland madaxweynaha ka ahaa warbal maaragtay waxa dhaqaale heli kartid ii soo dir hadba in wasiiradii qayba mar la qaado oo guragurayn iyagu inay maaragtay tabartooda waa laga xiray waa loo diiday in lagu caawiyo inay Soomaaliya dawladdaas u gasho oo cagaha dhigto marka waa tii ay ku guraguraysteen oo waxay awoodi kareen isugu geysteen baydhabo iyo meesha la yiraahdo Jowhar dabadeedna markay inay wadankii galeen cadaatay maamulkii iyo maaragtay Cabdullaahi Yuusuf madaxda ka ahaa maamulkii halka lagu dhisay inay wadankii cagaha dhigeen markay cadaatay isla markiiba ajnabigu waxay dedejiyeen qabqablayaashii awal lagu daray maamulkaas oo ama baarlamaanka ka noqday ama wasiir ka noqday inta lacag la siiyo in la yiraahdo xamar u diiday inay maamulku xamar soo galo u diiday markiiba lacag baa la siiyay waxay samaysteen qabqablayaashii xamar joogay waxay samaysteen magac lagu hawlgeliyay lacag badan oo malaayiin dollar lagu siiyay in ay ku gabadaan inay argagixiso la dirirayaan laakiin waxay la bareereen maamulka inaysan u ogoleen inuu xamar soo galo waxaana ka dambeeyay ajnabiga ay ahaayeen in dawladdu dhalato Soomaaliya cagaheeda ku istaagta ay cabsi ka qabeen siday haddaba u hortaagan yihiin baan u hortaagnaayeen marka Cabdullaahi Yuusuf arinta waa ku baraarugsanaa nin madax adagna oo military-na waa tuu ahaa oo go'aan adag arintaas asagoo ay ka go'an tahay inuu jiiro oo maamulka geliyo xamar oo dawladda xamar geeyo ayaa qoladaasna la sameeyay hogaamiye kooxeedyada oo qabqablayaasha la isku xiray oo lacag lagu siiyay inay maartay dawladda xamar ka hor istaagaan argagixisaan la diriraynaana ku gabadaan sidaa goor ay tahay waa tii ay maxaakimtii oo awal markii hore ku bilowday markii magaalada Muqdisho fawdadeedii iyo dhibteedii shacabku u dulqaadan waayeen ay markaas samaysteen si beelbeel ah beel waliba meesha ay magaalada ka degan tahay inay samaysato maxkamad sharci ah oo ay ku sugto nabadeeda oo waxa wax ka biinaya ay iskaga xakamayso marka maxkamado kala duwan oo beeluhu leeyihiin waatay samaysmeen oo aan meel kale iyo fikrad kale ka imaanay ka timid baahida shacabka iyo inay nabadgelyadooda sugaan marka xagga diinta u carareen maxkamadihii marka xamar xoogaa iyadoo lagu nafisay ayaa waxaa timid barnaamij kale oo maxkamadii dusha lagaga keenay oo ah maxkamadaha dhan in la mideeyo dabadeedna ay maaragtay arintii nabadgelyo sugidda Muqdisho ahayd arin ka baxsan oo ka dheeri ah in marka ay lagu dhaliyo hindisaan
si ay ugu duulaan dowladda laftigeediiba oo ay baydhabo u qabsadaan maxaakimtii arrintii markaa waxaa la soo dhexgeliyey xarakaadkii baa la dhexgeliyey arrin xarakaadkii wataan bay isu bedeshay weerar baa dowladda lagu qaaday ajnabiguna maaragtay lug weyn buu ku lahaa in maaragtay dowladda meesha lagu baabi'iyo oo ay baydhabo aysa soo dhaafin khaasatan ajnabiga markaa leeyahay dowladaha reer galbeedka siyaasadda ay soomaaliya kula dhaqmayaan taas kuwa gobolka oo dariska inala kuwa dibadda abaa riixaya oo saameyntii kuwa gudaha gobolka inala degano mar walbaba waxa ay ina kaga imanaya waxa ka dambaysa gacan shishe oo maaragtay ama soo dhiirigelinaysa ama ay ku tiirsan yihiin baa ka dambaysa badana marka baydhabo markii ay ku duuleen maxaakimtii oo damcaynaya halkaa dowladda ku burburiyaan Ethiopia oo ka baqaysay ayaga inay ku soo butaacdo maxaakimta oo ayaga ay ka nabadgelin baa dagaalka la gashay dowladdii federaalka oo macnaha ku difaacday oo kula safatay baydhabo inaan lagu qabsan arrintaas marka dabadeed taas inaan ku sii dheeraado mar rabo faahfaahinteeda iyo kala dhigdhigeedu mar kale u baahan tahay adigu waa tii xukuumaddii ay markii dambe gashay xamar ay gashay calankii waa tii meeshii laga taagay in dowlad Soomaaliyeed ummadda adduun weynaha loogu baaqo in dowladda caasimadii tagtay calankii la taagay Soomaaliya cagaheeda mar labaad isku taagayso arrintaa waa tii dib badan iyo dhiig badan iyo shida badan dabadeed calankii in la taaga lagu guuleystay hase yeeshee waa tii shacabka muqdishona dagaalkii de meel lagu dagaalamo xoog lagu galay bay ahayd dib badan baa gaartay shacabka waatay la kacshay shacabkii maxaakimtii saameyn bay ku lahaayeen shacabka laftigoodu adigu ugu dambeyn walwal laga qabo dowladdaasi inay Soomaaliya oo dhan isu keento darteed ayaa ninkii Cabdullaahi Yuusuf ahaa ajnabigu culays badan waxay ku saareen in meesha ay ka saaraan waana u suura gashay oo de maaragtay maamul yar oo curdin ah oo tabar lahayn oo maaragtay awood badan haysan baa maamulku ahaa waa laga tuuray Cabdullaahi Yuusuf meesha qasdiga aan hadda u hadlayaa waxaan u dan leeyahay ishaynta iyo khilaafka taaganaha ah oo mar walba taagan oo ka dhex taagan maamulka federaalka hadba ka dhisma iyo Puntland weeye waxaan hadda shiishaya waxaa marka timid dabadeed Cabdullaahi hadduu meesha ka baxay dowladdii xamar laga dhisay sidaa kuma baabi'in oo waa tii maaragtay Shariif iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo maxaakimtii iyo arrintii waa tii halkii wax laga siiyay biyabada meesha Shariif la keenay Shariif iyo Puntland dhexdooda khilaaf weyni kama dhicin Shariifna ma lahayn ama inuu wadanka boobo oo hantida aruursado dabeecada Shariif Sheekh Axmed ma uu lahayn Puntland si gaar ah ulama u dirirayn oo sidii arrimo markii dambe noqdeen oo kala ah hase yeeshee Puntland waxa ku timid Shariif dabadi Puntland waxa ku timid la dagaalan kaga imaanaya maamuladii federaalka ka dhalanayay halkii ay ka ahayd iyadu maamul goboleedka kaliya oo jira halkii ay ka ahayd iyadu maamul goboleedka dhiig iyo dhaqaale wuxuu heli karay ku baxshay in calanka Soomaaliya mar labaad la taago halkii ay ka filanaysay soo dhaweyn iyo la tashi iyo xurmo iyo qiraal la qirayo waxa ay ummadda Soomaaliyeed ay isku dayday inay u siyaadiso u kordhiso oo abaal iyo wanaag iyo hambalyo ay ku mudnayd waxa timid arrin la yaab leh oo ilaa hadeer taagan oo la yaab leh Puntland iyo shacabka Puntland ku timid arrintaas maxay tahay arrintaas waxa weeye waxaynu ognahay maamulada kale oo dabadeed la dhisay inaysan lahayn awood inay lugahooda ku istaagaan oo iyagu ismaamulaan dhaqaale ahaan iyo ammaan ahaanba awoodda inay fursadda aynaysan haysan oo tabartoodu ay ka hooseyso oo maamulada qaarna dhulkoodii oo dhanba meesha yaroo maamulku jooga ma ahayn
ay gacan kale ku jirto ama gacan ajnabi ha ku jirto ama ha ku jirto gacan nimanka dagaalamaya waddanka ku jira marka maamuladii waxay noqdeen maamulo aan gaarsiisnayn weli inay iyagu cagahooda ku istaagaan oo ay noqdaan dad gacanta ku haya maamulkaasu deegaanka uu sheeganayo hoos imaan lahaa Puntland kaliya ayaa waxay noqotay maamulka kaliya oo gacanta ku haya dhul Soomaaliyeed oo aan ajnabina gacanta ku hayn cid kalena gacanta ku hayn dhul Soomaaliyeed oo weyn oo ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed haddii adduun weynaha maanta su'aal la geliyo la yiraahdo Soomaaliya maxaa ka jira Soomaaliya maxay ku suganta meel adduunka la keeni karo la oran karo waa kan dhulkii Soomaaliyeed kana kamid ah dhulka inta ballaar leeg oo nabadda ah oo maaragtay maamulku ka jiro oo ummadda nabdooni degan tahay oo inta ballaar leeg waa dhulka Soomaaliyeed